ku weydiinayna heshiiskii gobolka mudug lagu gaaray ee camay iyo carabay ay garwadeen ka ahaayeen labada madaxweyne ku xigeen ee galmudug iyo puntland sidaa aragta shirkaas waxaan u arkaa yani dhawayd baan ka raacawado waxaan idhi dhaga roob maahan degaan buu isku hayay degaan ayaa la isku hayay degaankiina laguma heshiin degaankaas waa degaanka godod iyo gaalkacyo geeskooda dhexliya bardadheere iyo ciddaan sacad ay deganayd runta haddii la sheegay galmudug oo dheer ma degana waddankaas sacad baa degan arrintaasaa la isku hayay arrintiina de wax heshiisa oo laga gaaray ma jidho maxaase heshiiska waxaa laga gaari lahaa haddii intii la isku tago dhulkii lagu hadlahayo dadku wada dego oo ceeshii la caddo oo degaankii la wada dego yaa la oran lahaa meeshaa nabad baa laga galay wax halkaa caawa aan leenahay nabadii la galay waxay ahayd nabad makhaadaha la siran bay ahayd niman baa yimid laba madaxweyne ku-xigeen iyo daday wataan baa yimid makhaadaha la fadhiistay kafeegaa la cadday haya waa yacni waa la heshiiyey anay maanta markuu garoowa taga wuxuu yidhi dhul weyn baan aragnay oo godad iyo diilaailmaar iyo bardadheere iyo dhul weyn baa degan oo leh haddee inuusan heshiis ka tegin ee asaga uu ka tegay yacni dhibaato ka tegay intaabaa caddaynaysa intaan ognahay maamulada galmudug iyo puntland wax colaadoo ka dhaxaysa male oo madaxdu waa saaxiib cabdullikaas cadaaduu tegey madaxda madaxweyne galmudug puntland waa tagaa dhibaatada waxa ay ka dhaxaysaa waa dadka deegaanka ismada cuqaasha waxgaradka xoolo-dhaqatada shirkii airboor gaalkacay ka dhacay cuqaasha iyo waxgaradka idinkaa ka mid tihiin ma ka qayb gasheen dadka deegaanku heshiiska qayb ma ka ah dadka deegaanka waxa laga qayb geliyo ma jirto waxaa shirarka taga nin dibadda ka yimid oo siyaasiya iyo nin odaya oo wax ka dambeeya aan la arag waxaa dagaalay dadka baadiyaha dagaalay xoolo dhaqatada ah ciidamada labada ciidan baa dagaalay ayadana la iskuma keenin asalna waxaa dadkaanu ku dirirahayaa war ceelkayga aan caddo war gurigayga aan tago iyo wallahi hadda gurigaaga tegayn intaa unbaa dagaalkoo socdaa loomana sinaa buntland ayaa eedaa leh wax loo sina yahay ma ahan galmudug ayagu dagaalka waxay doonaysaa ceelkeedii iyo gurigeedii iyo degaankeedii inay tagto marka iyadaana loo diidan yahay nimankaanuna nabad ma aysan keenin waxay ahaayeen malaha dee lacag baa la fisilaynaya lacagtoodiina waa qaateen horta anigu waxaan ahay nabadii gaalkacyo lagu soo galay 93 ninkii bishii lixaad ninkii guddoomiyaha labada geesood loo doortay baan ahay nabadoonkii loo doorta nabadda loo doortay al'aanana aniguga sidii baan taaganahay maxaa jira ninka cabud waa ka yimid iyo ninka laascaana ka yimid gaalkacyo nabad kama keeni karaan waddanka galmudug abaar baa haysa niman waxaa jira maanta ka mida maseerteen ee buntland ka tirsan oo xoolihii raray oo ciddii raray oo maanta deer iyo wardheer iyo walwaal iyo diilaa gallaadi iyo doolad meel walba ciddii geeyey yaa jira nawaahiga la isku haysaa waa ceelka gododeed eedda soomaaliya niman baa degan nimankaabaa dadka u diiday soomaaliyooda oo buntland oo dhan anigu wada eedayn maayo maxaa jira waxaad arkaysi waxaan idiin sheegayaa dadka ahaa u sheegaya eedda reer bixidi wax kuma leh reer khalaf wax kuma leh ciise maxamed wax kuma leh reer kasta wax kuma leh waxaa eeddaa iskale nimanka la yidhaha reer mahad oo reer mahad oo cumar maxamuud uu yahay yaa eedda iskale waxaad gaalkacyo iyo midug ku tiriraya waa ayaga waxaa xoolaha inaga u diida waa ayaga waxaa heeska fadhiya waa ayaga waxaa codsanayna soomaalideenna dibadda joogta imaada walaayihiin u imaada haddii qoladii gar daran